maanta khatar inaynu ku jirno waxa u daliila dawlad kasta marka imaanaysa ama ay xun tahay waxyaabaha ugu horeeya ee ay ku kacdaa waxa weeye waxay la dagaalantaa xorriyadda qowlka waxa ugu muhiimsan markay Soomaaliland noqoto xorriyadda saxaafadda maanta xorriyad saxaafadeed oo oran kara Soomaaliland ku jirta ma jirto waxa weeye waa nasiib daro waxaa soo kacabay waxaa soo khasaara iyo waxaa soo sacrifice waxa lagu soo dalay inaynu xor noqono haddana waxaan leeyahay maanta madii waxa kaloo marka runtii xorriyadda qowlka la dagaalamayo waxba loo adeegsadaa waxa loo adeegsadaa ciidan mushkiladaha ugu waaweyn ee Soomaaliland ka taagan xildhibaanada shalay loo adeegsaday waxa weeye bilis in badan ayaynu isleeyi kartaa waa xukuumadda xubin markay bilis ay gacanta ku dhigto ee bilisku xor noqon waayo ee bilisku accountable noqon waayo publica ee uu accountable noqdo madaxtooyada tan oo kala dhacda waa la adeegsadaa xurmay ahaayeen xildhibaanadu in ciidan soo gaban ay ahayn madasha uu shirku ka socdo laakiin ciidan baa kusoo duulay ciidanka kusoo duulay sharci darru sameeyay laakiin waa la caadisay oo markii u horreysay bay ahayn marka mudaaharaadka ciidan loo adeegsaday dadka rasaas loo dhaco marka suxufiyiinta la xaqido ee laga dhigi waayo ee tanna way soo socotay kolkaa runtii dembiga xukuumaddu ha lahaato khaladaadka ay sameynayso noqon laakiin shicibka xildhibaanada kuwa xorta waxaan xasuusinaya waa inta uu bilaysku gacanta dawladda ku jiro ee aanu xorka ahayn oo madax bannaanayn sharcigeedu wuxuu dhigaa in bilaysku loo madax bannaanaado oo saxaafaddu loo madax bannaanaato oo aan labadaa madax bannaanidaa lagu dabeetadooda la waxyeeleyn oo loo tugo oo ay jirto laakiin marka la mijaxaaliyo madax bannaanida bilayska iyo tii saxaafadda ogow markaa waxa soo socdaa waxa weeye amar ku taageeray dictatornimo hantibo iyo awoodii dowladeed oo dadka lagu gumaado waxaan kolkaa adugu hadalkay kusoo gabagabaynaya in aynu ogaano in labadaa qodob haddii aanaynu wax ka qaban in aanaynu waxa kalena wax ka qaban jirin marka xoog lagu sheegay waxa weeye ciidankaa iyo cashuurta dadka laga qaaday mushaharka ka qaadanaya ayaa lagu adeegsay inagama xagaan ciidanku waxay dhaxal noo ahaa laakiin dee waa loo adeegsanaya imika waxaynu ku kala duwanay waxa weeye ciidankii bay hantiyeen ciidankana maaha in ay xukuumaddu yeelatee laakiin ciidan kasta dowladaha wanaagsan waxa weeye ummadda ah wixii sharci darraa ciidan kasta uu ka taxay laakiin imika amarkaa ka sarreeya sharciga iminka booliiska haddaa tilaa maanta sharciga iyo amarka yaa sarreeya oo kudhaagay waa lay amar kolka booliis dee maaha waa militarigunbaa lays amraa arrintaa nimayoo aynu xusuusnaano waa muhiim xorriyadda qowlka dhimaashado bilayska sidii aynu uga furfuri lahayn gacanta dowladda in aynu kalabeed qabano weye haddii kana xitaa dowladda hadday timaado sida runbay iyaduna uga dandoonta